salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalkeena waa walaashin Anisa Isteel oo idin leh idil ahaantiinba waa idin salaamayaa meesha joogtaan daafaha caalamkaba. Waxaan idin wadaa maanta buskud 6 nooc 6 siyaaboodna oo kala sameynaya insha Allah. Waxaan u maleeyaa waa idinka soo dhisi doonaa gabadhii mashiin haysato oo camal biskoolada tan gacanta haysato tan haysanin fur intaba insha Allah. Aan isla daawano sida uu sameeyay hal cajiin ayaan ka sameynayaa. Waa si fudud oo simple ah. Okay, si fudud insha Allah. Waad aragtaan hadda waa 6 kalar oo shaqo isku lahayn. Mid walba nooc gooni ah u sameynaya ha degdegin insha Allah fiidiyoga dhameyso. Ciid mubaarak kul caam wa antum bikhair. Saxaabteeda quruxda badan hadii wixii ka dambeeyay waxaan bilaabeynaa cajiinteena isku darsano. Hana iloowin channelka inaad subscribe dhahdaan nagu cusub tahay insha Allah. Okay, asxaabta quruxda badan halka hadda waxaan ku ritay xabad ukun ah 2 xabo ukun macala xabkooda insha Allah. Waxaan kor uga soo daray 4 xabo ukun oo aan lahayn xabka oo qaybta jaalaha kaliya because of ma rabo inay iga jilco waayo ku dada xabkooda ku dartid buskudka wuu ka jilcayaa. Inta ka faa'iideysi wacan waxa kale ku shubay koob butter ah oo soo dhalaaliyay 2 koob oo sugar powder ah sokorta budada ah oo shiidan. Haddaad rabtid tan caadiga shiidi kartaa. Inta ayaa isku walaaqaya sokorta in yar ayaan ugu darayaa waa 2 koob. Okay, kiilo waxaan sameynayaa 2 kiilo oo buskud ah 8 koob oo bur ah 2 koob oo sokor ah waxaan u maleynayaa haddaad kiilo sokor kiilo buskud sameynaysid oo aad isticmaalaysid sokorta tan budada ah tan kala xoogay uga macaan tahay 1 koob ayaad ku daraysaa sokorta. Hadda sokor ayaan ku soo daray iyadana sidoo kale koob labaad. Halka ayaan waxaan uga gudubnay waa sokor iyo subag iyo ukun. Waxaan halka ku haysano koob halfkiis oo caano qandac ah. Caanaha powderkan qasaaya insha Allah in yar ayaan ugu dari doonaa. Sidoo kale iyo burkii ayaa halka yaalo karaali noqdo kaamirada gacanaha lagu haayo way dhaqdhaqaaqaysaa. Hadda waxaan bilaabay inaan burkii ku soo daro in yar insha Allah. 8 koob kuma wada hal mar kuma wada dareysid. Haddaad tahay marka kugu horeeya buskud sameysid 2 koob ku tijaabi inaad ku baratid. Aniga hadda bur badan aan qasaaya 8 koob insha Allah. Hadda waxaan ku soo daray 4 koob. Inta kalena yar ayaan ugu darayaa. Waxaan ku darayaa qaadadaas waa vanilla powder. Way dhamaatay. Waxaan kale ku darayaa baking powder qaadada mugeed ama buuxdo oo baking powder sida ayaan isku la socono. Okay, burkayga haddana in yar ayaan ugu sii darayaa insha Allah. Waxa ii haray hadda 4 kale. Hadda 2 aan ku soo daray 2 kale ayaa ii harayso insha Allah. Step by step inaad fahantaan ayaan rajeynayaa oo aad ka faa'iideystaan waa wax easy ah oo aad u fudud. Waa koob subag ah caanaha yar ayaa iyagana kor uga darayaa. Cajiinta yeena ka adkaanin yeenan ka jilcin saaid. Laakiin inay jilcdo aad u fiican tahay adeeg iyo jilec hadii xig lahayd inay ku jilcdaa ku roon. Hadda burka waxa iigu hartay 2 koob. Okay, hadda gacanta oo la tagayaa cajiinteeni. Hadda koob ayaa ii haray.
hadda sidan 7 koob aan ku haystaa iyo 2 koob iyo haaf sokor ah. waan idiin sheegay koob iyo bar sokor ah, kiilo bur ah. waa kiilaha burkana waa 4 koob. intaa waa isku fahanaa u maleeyaa. hadda koob bur ayaa ii haray. koobka xitaa inaan wada isticmaali doonin laakiin waan isticmaalaa waayo qoyaanka haddaad ukunta intaa isticmaalaysidbo xabkeeda aad ku dartid cajiintii iyo caanihii iyo burkii iyo sokortii isma qaadanayaan ileen wuu sii qoyan yahay. hadhow nahdaa ka tegaysaa wax is haystana ma noqonayo insha allah. sida ay cajiinteena u jilicsantahay aragtaan maasha allah. qiyaas isla eg waaye. burkana waxaad ku garan kartaa inuu ku diyaar yahay markaad buskut diyaarinaysid. gacantaada mar hadduuba ka haro weelkana kasoo boqo waa diyaar. inaad ka bogateen ayaan filayaa maasha allah. haddana waxaan bilaabayaa siyaabooyinka u sameynayo iyo mid walbo see tahay ayaan idinku faahfaahin doonaa insha allah. asxaabteeda qaaliga ah waxaan ku hormarayaa hadda cajiinteena sida ay kusoo baxda wayna jilicsan tahay. ma adka buskut jilic haddaa rabtid waa inaad jilcisid burka. okay waxaan hadda ku hormarayaa biskooladan ama mishintan. intaasoo afay wadataa. intaas mid walbo nashqad gooni ayay soo saareysaa. waxaan rabaa inaan idinka faa'iideeyo inta badan baashan waa laga soo cabaadaa jirjirkaas ama meesha minshaarta u eg hor soo mari. markaa laakiin furaysid oo cajiinka ku daraysid waa inaad gadaal geysid si markaad gadaal haddaad marisid jirjirkaas hor ma dhaqaaqays mana shaqeynayso. intaasna iyadan inaad ka bogateen ayaan filayaa. halkaa sharaxaada mishintaas ayay nooga eg tahay insha allah. haddana habka aan u isticmaalayo iyo nashqadahan isticmaali doono waayo waxaan oo dhan ma ka gaari kari subxaanallah aaday u badan tahay. nashqadahana sidoo kale 1 iyo 2 ayaan idinka tusayo intuu waqtiga ii saamaxo maadaama aan noocyo kalena sameyn rabo. okay waa ku kaan qaadan lahaa iyo kaan deyn lahaa kala kasi la'ahay ma fahanteen. codkeyga ka raali noqda. hadda kalarkaas 3 kalar ayaan la baxayaa. 3daa kalar ayaan hadda sameyn doonaa insha allah. kalarkaas ayaan ugu hormari doonaa laakiin haddana gadaal iga cajibin doonin waan bedeli doonaa insha allah. waad aragtaan waan celinaya gadaal waa inay cajiinka dhag markaa ka siisid buu is reebo si maya cajibinin. nashqad kalaan soo qaatay sida ayaa qurux ah laakiin waan bedelay. markii wadan nashqadana soo qaaday ayadana sidoo kale hal mar ku taagsa dhac hal laba dhufan hal mar qac hal mar sida biskoolada caadiga la rido ama ilmaha dhagaha loogu duro kadalik wasas camal hal mar dhag ka siine haddaa 2 dhufatid wuu burburanaa. sidan ayay kusoo baxda nashqadeeni. markuu karana waa idiin tusi doonaa maasha allah. saxankii labaad. okay haddana waxaan idiin tusayaa gabadha furka haysato ha iswareerin adna furkaaga sidan u sameyso. furkaaga laga qurux badanaan ka jeclahay aniga. hal xabo miyaa idinka tusayaa oo furka ah. kan gabadha furka haysatana ayadana inaan kasoo dhisaan filayaa. waa kaasaa asagana saxankii buuxo oo furka ahaa. furka 2 nooca isticmaalayo waa furkeena caadiga buskutka weligiisba loo isticmaali jira. gabadhaan mashin haysanin furna haysanin maxay sameeyaan gacantaada ku mashin iyo ku fur ah. okay cajiintaada waa diyaarsatay waa soo qaadatay. sidan ayaa marka hore u wareejinaysaa fartaada saa ku kala dhehe. fur ma laga weynaa gurigaaga ama caag ka soo furo ama qajajacley ka soo furo. waxaa kasoo furatid bufuraa soo qaadane sida arkaysid sida arkayo kula sida arkaysid ayaa u taaban aad ugu jarjare maasha allah. iyadaa ka qurxoon intaba wana ka waaweyn
aniga waxaan jeclaystay sokor yar inaan ku sameysto maasha allah. ayadana gabadha gacanta haysanin labadaasbo inaan kasoo dhiso ayaan filayaa oo maasha allah kaaga soo faa'iideeyay. please haddaad channelka ku cusub tahay subscribe dheh, sidoo kale iyadana xabadana sidoo kale sida hore aan sameeyay ayaan sameynayaa. furka ayaan ku jarjarayaa maasha allah. haddana sokortii ayaan saa u gelinayaa, waan dhiganayaa maasha allah. waxaan u maleeyaa gabadha iyadana haysanin labadaasba waan kasoo shiday. ha iloowin fadlan inaad subscribe dhahdid channelka. waad aragtaan weli way socotaa cajiinta. sameynayaa tii gacanta taasoo xoog ii cajabisay. waxaan u maleeyaa gabar walba halkeeda inaan ugu keenay. waayo saddexdaas siyaabood loo isticmaalaa. haddaad haysatid biskooladaas waa kaaga faa'iideeyaan filayaa. haddaadan haysanin furkaaga iswareerinin, furkaaga ka qurxoon maasha allah. hadday jirto waxaa si fiican u fahmin insha allah hoos iigu soo qor, waan kaasoo jaahil bixin doonaa. waadna ku mahadsantihiin daawashadiina. sidan quruxda badan ayuu kusoo baxay. kaas waa kii gacanta furarkii. okay, kan gacanta ku sameynayo furka caadiga saliidaan ku jariyo waa kaasa. waa kii gacanta sokortaan gelgelinayo. furka caadiga ah balbalaarka ah, kuwa 3 gees ah. intan waa fur, tan waa mishintii biskooladii maasha allah nashaqadaas quruxda badan. tanna sidoo kale waa biskooladii nashaqad labaad oo qurux badan. tanna waa taad arkayseen waa tii saddexaad oo biskoolada. waa 3 gacanta ah, 3 nashaqad oo ah biskoolada ah maasha allah. inaad ka bogateen ayaan filayaa. please haddaad mugdi wax kaaga jiro ama aad isleedahay sidan ma ahayn ama wax aad fahmin oo jiro, hoos iigu reeb comment, waa kaasoo jaahil bixin doonaa insha allah. sidaa quruxda badan ayuu fideogeena ku egyahay. waadna aragtaan sida quruxda badan uu kusoo baxay asxaabta qaaliga ah. haddaad channelka ku cusub tahay please subscribe dheh. haddaa hore noola joogta waad ku mahadsantahay daawashadaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.